xaflad taageero ah oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Finland isla markaana lagu taageerayo taliyihii cusbaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee booliska General Maxamed Sheekh Xasan ayaa lagu qabtay waddanka Finland waxaa qadka telefoonka kaga qayb qaatay General Maxamed Sheekh Xasan isagoo uga mahadceliyay jaaliyadda Soomaalida ee Finland sida ay ugu heelan yihiin taageerada iyo waliba garabsiinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qabanqaabiyaha kulankaasi dal cilmi cismaan iyo qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahaa warbixinadoodii sida tan markuu ugu horeysa waxaan mahadcelin ballaaran usoo jeedinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland ee maanta halkan isugu timid kulankan oo ah kulan aynu ku taageerayno uguna ducaynayno in Ilaahay u fududeeyo taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan oo isagu dhawaan loo magacaabay taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kaleeto waxaanu asagana tahniyad iyo sagootin u diraynaa taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Saacid oo isaguna howlkarkii iyo kufnaantii iyo Soomaalinimadii iyo waajibaadkii qaran uu gutay isagana aanu uga mahadcelinayno ما كان لله وحكست لوجه الله لو قبطه إلى درتس لو قبطه ما كان لله يدب لله دام واتصل ودائم هذا وانا حريص صلاة سادرتين وذاتك وحلك لو مقعابي الله أفوذ ذيو أنك انت صاروا بحا وعد انت صاروا كفلين إنه بحقبطه لما تقولون ما لا تفعلون اسكيل عليه وقولي عمرو فسير الله وقول نقضه وقمنا إن ما كان لله دام يقول نقطة تاس إلى فجينا سير الله في ذلك. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الشكر لك. والكرامات. أنت ولا رأي رسيلا. مع السلام على قول يتولى أخذ القرآن كعبد النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هذه الجماعة دي تاجرين مسكتورين ولازمين وتنتعبين إن تلقوا كذلك بيتوا أي مقدس دران والعياقات سيدة نموت عجبتين عمسيا نموتين أنا وجنال محمد شيخ حسن إسماعيل فريقا عصور عندك كفوني شو صوماليا نومك عامل بإذن الله الكريم وحان آتي إلى أن الله أعطاني أنها كنت لاريا عندك كفوني شو صوماليا inuu dib ugu noqdo waagii afgaranaysaan oo waqti insamaadkii aanu ahayn ciidamada booliiska Afrika ciidanka ugu wanaagsan ugu khibrad dheer ugu tafsan ugu dadaal badan iyo karaamo iyo sharaf ku lahaa inaan gaarsiiyo ayaan ilaahayna ka baryahayaa adinkana aad ugu soo faatixaynaysaan aad iyo aad baan u wanaagsantihiin mar walbana waa idinku talagelaynaa adinkuna ugu talagala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana waxaan u yeerayaa inuu dhowr kelmadood ka yiraahdo aqoonyahan Soomaaliyeed isaguna ah doctor kana mid ah aqoonyahanada dalkan Finland ahna macallimiinta dalkan active ka ah Mr. Asad inuu isaguna la السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلي والله اللهم سجى الله يا هذا الكورس صنع وقنا يا أنت ده تجاه الرئي با كل تهنيدا سون بيحيد وحا ماشي نص فريستي لكن مناسبة أنا نوقف عيد سنة يوم الربيع كالمدينة فدرة عن كلها الله هي دي لا يرادو دام تي في ويا تي في انترناشونال المسؤولين تودنك مع مشا حقيقة دي ودنك عن وظفير سنة إنه وودن صومالي اللي سوي يرادو وواحد بدن ومضحك على إلهي سبحانه وتعالى ومحايا كفضي علي ودن اسكو لوقادة اسكو دينة اسكو دقنة اسكو عرقتية حتى قفك إثيوبيان كميل مرة هي قفك الصومالي مرة هي وكالة قرقرتا هان هذا كان من ميل مروكو يرادو الصومالي صدح قويسون كوارا إنه طريقة مرة أنا كجرنا تذكر سوق أنا يوم وين كرتين وقلال قفك إثيوبيا السنغال قريب نوجا ميدان نوعك مركا أنت إلهي تذكر كفضي علي وعدنا وحصل قرنا
kuwa halkan jooga oo wax haysta ilaahay wax siiyey waa is haystaan kuwii maxay ahayd meelaha ummaduhu isugu yimaadaan mas-uuliyiinta ka ahaa waa is haystaan waddankii oo cid walba ay ka badan tahay oo xukumi karo micnaha nin walbaba in ku filan waa qanac daran yahay marka waxaan marka mas-uuliyiinta uga faa'iidaysan lahaa inaan ku idhaahdo nin kasta oo mas-uula la magacaabo ama saacid ha noqdo ama generaal maxamed sheekh xasan ha noqdo nin keliya wax qaban kara ma jiro waxaa weeye waddankii sidii waagi hore u ahaan jirayna ma aha waxaa meesha ka furan 100 hay-adood oo 100 hay-adood midiiba security gaara ee iyadu samaysatay ganacsatadu waxay leeyihiin ciidan u gaara hub wata hay-ado waxaa jira sida kuwan qolooyinkan vartiyadoo kale ah oo waddankii ciiddaa ka badan oo ka furan mid walbaba gaarkiis wuu shaqaystaa oo business ahaan baa loo aaday dhulkii marka qolo walba hubkeedii iyo ciidankeedii bay wadataa marka waddan caasimadiisii intaasoo ciidan uu ku samaysan yahay yacni nin keliya oo generaal ah waxaa weeye runtii aad bay u adagta haddaan la wada shaqayn waxaan aad uga codsan lahaa xukuumadda soomaaliya iyo shacabkeedaba inay dalku waa dalkoodii dadkuna waa dadkoodii inay u turaan oo maxay ahayd nin walbaba noloshu waa ka badan tahay maxay ahayd la iska daayay jalaafaynta iyo ninka uusan qof ku qanacsanayn sida sahlan jalaafada ugu dhigaya marka waan ku dheeraaday intaasaan kusoo gunaanadaya haddii laa yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا مركب الصلاة المسلم كريم السلام يا دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبحي هذا ولا له يا هرو يرادين بحي الدارم يوانا هرا يا لو يري مكسي ديران يا هذا الكلام وحنا بفضل لو فايدستو حتى أن هاي إن مجتمع دقن dalka Finland inaan salaan halkan ugu dirno dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa kaloo halkan salaan ugu dirayaa mas'uuliyiinta oo dowladda Soomaaliyeed aan magacaabaynin dhammaantooda waxaan ilaahay ugu baryaa in ilaahay u fududeeyo xilkooda ay noqdaan dadkii isku keena ummadda Soomaaliyeed oo hadda meel kasta ku bahdilan maanta waxaan isku imaanay meeshaan taageero iyo inaan u muujino markino jacayl u qabna waddankeena iyo maamulkiisa waxaa ka mid ah anoo maanta meeshaan isku imaanay inaan taageerno taliyaha cusub ee booliska maxamed sheekh xasan waxaan ilaahay ugu baryaynaa asagana inuu ilaahay ka dhigo midka xilkiis ka soo baxa una fududeeya masaakiinta iyo dadka u baahan oo kii wax u tara insha allah ayaan ilaahay ugu baryaynaa wallahu aclam asalaamu calaykum kaalimaha anaga kala bedelnaa anagoo markaan ku jirna markaana waxaan u yeerayaa marwo Soomaaliyeed oo iyaduna ah marwooyinka active ee dalkan Finland uu leeyahay marwo Calab Cali Nuur ilaa iyaduna kelmado ku aadan barnaamijkan ay halkan ka soo jeediso kusoo dhaw waxaan u hambalyeeynaya Generaal Maxamed أنا كفاية سنة جانس كان طبعا دبل دقينا تليا عيدنك بوليس كصومالية جنرال محمد شيخ حسن وحالا إن جقديسة كي سيفي عن قديلها كديقة Soomaaliyeed Generaal Maxamed Sheekh Xasan isla markaasna aan ugu mahadcelinayno taliyihii ka horreeyay isaguna Generaal Saacid Cabdixakiim Saacid oo isaguna howlkarnimo iyo hufnaan qarannimo muujiyey intuu uu hayay xilka waxaan leenahay Generaal Saacid ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waa muuqdaa raadkii aad ka tagtay waa muuqataa qarannimadii aad muujisay waa muuqataa geesinimadii aad muujisay waa muuqataa howlkarnimadii aad samaysay waa muuqataa sidii dhismihii iyo qalabayntii iyo wax ku darkii aad wax ku dartay ciidanka bilayska Soomaaliyeed sidaa daraaddeed dadka Soomaaliyeed ma hilmaami doonaan kaalintii aad kaga jirtay waxaan rajaynayaa oon aadna kaaga sii codsanaynaa in aad halkaa kasii waddo howlihii qaran ee aad waday xilku waa meerto qof dadka Soomaaliyeed oo dhan buu ka dhexeeya
ummadda soomaaliyeed baa shaqada iska leh laakiin annagu waxaan qiraynaa in aad ahayd hoggaan hufan aad ahayd mid wax ku daray ciidanka booliska soomaaliyeed hanaan quruxsanna uga tegay waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waa u muuqday raadka aad ka tagtay waana kaaga hambalyeeraynaa taas waxaan leeyahay generaal haddii ilahay ku idmaayo cabdixakiim saacid waxaan leeyahay soomaalinimadii aada muujisay waanu kugu hambalyeeraynaa qaranka soomaaliyeedna wax ku dar buu u baahan yahay waana kuu baahan yahay kaamana baarba waxaan rajaynaynaa in intii aada horey u haysay in ka badanba aada qaranka soomaaliyeed tari doonto sidoo kale waxaan soo dhaweyneynaa annagoo marka horeeto ugu ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo soomaalidu waxay ku mahmaahdaa nin xil qaaday eed qaad soomaalida waxay tiraa nin xil qaaday eed qaad generaal maxamed sheekh xasan xil culus oo ummadda soomaaliyeed oo qaran leeyahay oo dadka soomaaliyeed ay leeyihiin baad qaaday waanan hubaa inaad tahay nin ka soo bixi kara sidaa daraaddeed waxaan ku kalsoonahay xilkaa nin ka soo bixi kara u qalma astaahila garanaya inaad tahay maxaa yeelay waxaad ka mid tahay kaabayaashii waaweynaa ee ciidanka booliska soomaaliyeed tusaale ahaan maxamed sheekh xasan 49 sannadood ayuu kasoo shaqaynayay ciidanka booliska soomaaliyeed haddii aan wax ka taabto xilliyadii uu talisada kala duwan ee ciidanka booliska soomaaliyeed uu kasoo shaqaynayay laga soo bilaabo sanadii 1968 ilaa 72 maxamed sheekh xasan wuxuu ahaa Somali Police Force Special Branch qaybta la yiraahdo SP oo halkaas uu ka ahaa dila kuwiimaayo madaxa dila kuwiimaayo arkiibyada oo ka ahaa isla sanadkii 1977 iyo 83 intii u dhaxaysay wuxuu ahaa crime investigation qaybta dambi baarista ama qaybta la yiraahdo CID-da qaybta la yiraahdo ayuu ahaa haddii ilaahay ku imaayo madaxeeda ayuu ahaa ama taliya ku-xigeenkeeda ilaa uu gaaray taliyaha hoggaanka CID-da ee jamhuuriyaddii soomaaliyeed waxaa intaa u dheerayd inuu ahaa head of haddii ilaahay ku imaayo Interpol ama booliiska caalamiga ah hay-adda booliiska caalamiga booliiska caalamiga waxaa weeye waa hay-ad international oo worldwide ah oo adduunka oo dhan booliskiisa kulmisa oo informationada iyo crime-ka caalamiga ka hortagta taas ayuu ahaa madaxa dila ku imaayo xafiiska Interpol ee Soomaaliya ayuu ahaa ilaa iyo waqti xaadirkan oo loo magacaabayo taliyaha booliska ee ciidanka Soomaaliya ma ogahay hadaan darajada in laga bedelay laakiin waxaan ku ogaa inuu ahaa dila ku imaayo taliyaha Interpol oo ah ka hortagga dambiyada caalamiga ah sanadii 1985 ilaa 88 wuxuu ahaa dila ku imaayo consulatiga for the Ministry of the Justice ayuu ahaa wasaaradda cadaaladda ayuu ahaa dila ku imaayo shaqeynaya qaybta sectorka dila ku imaayo CID-da ilaa uu ka gaaray darajada ah hoggaanka guud ee ciidanka CID-da Soomaaliyeed sanadii 1993 ilaa 95 National Security Advisor buu ahaa oo for restoration ama restore hope barnaamijkii la oran jiray ee Mareykanku uu hogaaminayay xilligii restore hope la oran jiray ee Soomaaliya ay soo galeen ciidamadii qaramada midoobay ka socday kuwii ka horeeyay ee Mareykanka ay yimid ee restore hope la oran jiray ayuu u qaabilsanaa qaybteedii dhismaha iyo dib u soo celintii ciidanka booliska Soomaaliyeed sanadii 1994 iyo 95 wuxuu ahaa sidoo kaleeto haddii la ku imaayo madaxa haddii la ku imaayo dhismaha ammaanka iyo soo celinta hanaanka ciidankii booliska ee Soomaaliya ee UNISOM markii ciidamadii Soomaaliya soo galay ay isu bedeleen UNISOM markii isu bedeleen UN ay isu bedeleen barnaamij waxaa jira ay ku soo nooleynayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku soo nooleynayeen baa jirtay barnaamijkaas ayuu wuxuu ka hormuud wuxuuna u qaabilsanaa AMISOM xafiiskeeda UNDP hadda oo la dhisay dowladda Imbagati markii lagu soo dhisay dowladda federaalka ee Soomaaliyeed xilliga Cabdullaahi Yuusuf ayuu haddana wuxuu dib ugu howlgalay
sidii loo noolayn lahaa ciidan boolis oo Soomaaliyeed oo tayo leh wuxuuna ahaa hogaamiyaha u qaabilsan dib u soo celinta iyo soo noolaynta ciidanka booliska Soomaaliyeed ilaa heer uu soo gaarsiiyay ciidan dhisan oo booliisa oo Soomaaliyeed run ahaantii inkastoo ay dadku si fiican u wada aqoon oo haddii la ku imaayo markaa iyada shaqada uu hayo aysan dareemayn laakiin wuxuu ahaa mishiinkii dhaqaajinayay ciidankan booliska ee maanta dhisan ee kumaanda booliisiya jooga ee kala dambeynta leh ee darajada leh ee qalabka leh ee taliyayaasha leh ee shaqaynaya ee ammaanka u helan mishiinkii dhaqaajinayay ee isku dabariday ee u dhaxeeyay haddii la ku imaayo wuxuuna markaa qaabilsanaa iyada ah hoggaanka tababarada iyo dib u noolaynta ciidanka booliska Soomaaliyeed ee arrimaha dibadda ugu qaabilsanaa taasoo hoos tegaysay UNDP hoos tegaysay isagoo isla markaasna ahaa Interpol marka taariikhda Maxamed Xasan General Maxamed Xasan aad buu u dheer tahay intaa markaan kaga gudbo General Maxamed Xasan waxaan kula dardaarmayaa waxaa tahay way muuqataa kaalintaadana way muuqataa dadka Soomaaliyeedna waa u baahan yihiin waxa lagu igmadayna waa ammaan ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay waxaad mas'uul ka noqotay oo gacanta lagu geliyay dal Soomaaliyeed oo 23 sanadood ammaankiisa uu xumaa maalinba maalinta ka dambaysa uu soo xumaanayay walow haddeertaan uu muuqdo iftiin ammaan iyo rajo dadka Soomaaliyeed ay qabaan sidaa daraaddeed Soomaalidu waxay tiraahdaa nin xil qaaday eed qaad aan mar labaad ku soo celiyo maahmaahdaas anoo halkaa ka duulaya dadka Soomaaliyeed waxaa deeqa cadaalad intaa kadib waxaan ku darayaa wax yar baan ku darayaa Soomaalidu waxay ku maahmaadaa far kaliyo fool ma dhaqo far kaligeeda fool ma dhaqo gacmana wada jirku wax ku gooyaan ammaanka Soomaaliyeed sideedaba ammaanku waa nolosha bini aadamka weyn ammaan hadduusan jirin bulshadu ma noolaanayso sidaa daraaddeed shacabka Soomaaliyeed khaasatan gobolka Banaadir khaasatan meel kasta oo dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin iyo gobollada kale ee dadka Soomaaliyeed ay degan yihiinba waxaan kula dardaarmayaa inay la shaqeeyaan kuna kalsoonaadaan gacanna siiyaan ciidankooda bilayska Soomaaliyeed waayo ciidanka booliska Soomaaliyeed askariga booliska waxaa loo tababaraa difaaca iyo ilaalinta qofka shacabka ee Soomaaliga sidaa daraaddeed askariga booliska waa ilaaliyaha shacabka waa dhowraha shacabka waa ilaaliyaha hantidiisa waa midka ay ku seexanayaan sidaa daraaddeed meel kasta iyo goob kasta oo dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin khaasatan gobolka Banaadir qofka shacabka ee Soomaaliga horta waa inuu sharfaa haddaad doonaysa inaad ammaan hesho waa inaad sharaftaa askariga booliska waayo askariga booliska wuxuu u dhimanayo u dhaawacmayo u gaajoonayo qorraxda u taagan yahay habeenkii u seexanay waa sidii hantidaaduna ay ku nabadgeli lahayd adiguna aad u heli lahayd ammaan dhammaystiran sidaa daraaddeed sharaf iyo karaamo iyo gacansiin buu kaa mudayo waa inaad kala shaqaysaan ammaanka waayo markaad booliiska aad kala shaqaysaan ammaanka ayaad idinkuna nabadgelyadiinu taam noqonaysaan laakiin haddayna kala shaqayn waxaa mar walba joogtaa oo dhacaya in shacabka qaybo ka mid ay dhibaato soo gaarto taasna waxaa laga yaabaa inay mas-uuliyaddeeda inta badan ay ku dhacayso shacabka oo dayacay mas-uuliyaddiisii ka saarnayd ammaanka waayo mar kastoo aad dayacdo mas-uuliyadda kaa saaran ammaanka waxaa mar kastaba imaanaya ammaan darro adiga dib kugu soo noqonaysa sidaa daraaddeed ammaanku waa muhim inaad kala shaqaysaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay la shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed saraakiisha booliska Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa taliyahooda cusub inay la shaqeynayaan oo ay wada shaqeyn joogtaa iyo xiriir joogtaa iyo iskaashi uu dhex mari doono sidaa daraaddeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan halkan mahadcelin uga soo jeedinayaa kasoo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan oo aynu isugu nimid hadday tahay hooyooyinka hadday tahay dhalinyarada hadday tahay aqoon-yahanka hadday tahay dhammaan bulshada Finland waxaan idin leeyahay aad baan idinkaga mahadcelinaynaa kulankan aad soo ajiibteen iyo waqtigiina aad soo siiseen aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
waa markii ugu horeysay oo taageero caynkan oo kale ah looga sameeyay waddanka Finland taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan iyagoo dadka Soomaalida reer Finland ay ka dalbanayaan in uu hoggaankiisa ka noqdo mid cadaalad ah. Maxamed Bashiir, Helsinki, Finland.